كلمة دعاء وكلمة مهضنقة إلهي بقى مهضنه مركب كواد مركب لوادنا waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiye ku-xigeenada guddiga fulinta xisbiga garabka haweenka iyo dhalinyarada dhammaan mas'uuliyiinta xisbiga iyo golaha dhexe aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan wasiirada wasiir dawlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada waxaan u mahadnaqayaa dhammaan taliyayaasha ciidamada waxaan u mahadnaqayaa agaasimayaasha guud iyo madaxda hay-adaha madaxa bannaan iyo komishanada qaranka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha xukuumadda ama dowladda golayaasha qaranka muddadii halkan la sheegay waxqabadkii xukuumaddu boqolka maalmood ee hore wuxuu ku salaysnaa oo saldhig u ahaa barnaamijkii siyaasiga ahaa ee xisbiga oo ka koobnaa tiirarkii halkan laga sheegay waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan dadka aan u mahadnaqay inay iyagu lahaayeen wixii la qabtay ee caawa lasoo bandhigay inay ahaayeen dadkii iyagu qabtay caawa halkan umaynaan iman inaynu dadka u faanno laakiin waxaynu u nimi inaynu dadka u sheegno wixii aynu inoo qabsoomay boqolka maalmood waxaan u sheegayaa dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan in qof kastoo muwaadini uu xaq u leeyahay inuu ina dhaliilo innaguna aynu dhegaysano oo inagoo isku kalsoon aynu ka jawaabno ama saxno wixii dhaliilayna inoo soo jeediyay hadday jirto waxaan halkan ka sheegayaa inaynu dadka u ballan qaadnay ballanqaadkii ku xusnaa barnaamijkii siyaasiga ee xisbiga ahaa marka intaynu fulinay boqol maalmood bay ku salaysan yihiin laakiin waxaa inoo hadhay 5 sannadood oo laga jaray boqolkaa maalmood waxaan idin xasuusinayaa go-aan kastoo aynu qaadanno waxqabad kastoo aynu qabanno dhaliil kastoo aynu yeelanno waxay raad ku yeelan doontaa in dadku mar labaad ina aaminaan haddii alla yidhaahdo waxaa inagu waajiba inaynu wixii aynu ballan qaadnay inta ugu badan ee suurtagalkaa aynu fulino innagoo ilaahay la kaashanayna anoon ku noqnoqonaynin sidii halkan laga sheegay waxay noo qabsoomay runtii hawlo adag boqolka maalmood waxaynu u badheedhnay hawl adag laakiin inoomay suurto gasheen haddaan shacbiga iyo mas-uuliyiintii aynu diray iyo salaadiinta iyo golaha guursidu iyo golaha wakiiladu iyo wasiiradu iyo agaasimayaasha guud iyo jananadu haddaanay nagala qayb qaadan inoomay suurto gasheen waxaa ilaahay mahadiya in dhammaan ciidamadii madanigaha in yaroo fara ku turis ay ka hadhay caawo
intaasina berri iyo saa dambe iyo saako way dhammaanaysaa. waxaynu ku dhiiranay barnaamijka casriyeynta ciidamada kala duwan ee qaranka. barnaamijkaasina wuu soo dhammaaday. waan u mahadnaqayaa guddigii wasiirada aan magacaabay iyo guddigii farsamada ee hawshaa ka qayb qaadatay iyo komishanka doorashooyinka qaranka oo iyaguna gacan weyn naga siiyey hawshaa tirinteeda. waxaan kaloo umahadnaqayaa salaadiinta iyo cuqaasha iyo haldoorka labada bilood iyo dheeraadka imika ku maqnaa ceelaf weyn si ay usoo afjaraan colaadaa raagtay ee ceelaf weyn oo weli ku maqan. iyagana ilahay waxaan ka rajaynayaa wiigan soo socda inoo bilaabmaya inay hawshaas soo afjaraan haddii ala yidhaahdo. waxba kaga noqon maayo wixii dee xukuumaddu ay ku guulaysatay inay qabato ama waddo ha noqoto ama adeeg ha noqoto halkan ba caawa lagu soo bandhigay. taa waxba kaga noqon maayo. waxaanu ku dadaalaynaa inaanu dubahabeyn weyn ku samayno hanaankeena dhaqaalaha haddii ala yidhaahdo oo la casriyeeyo kaasoo u sahli doonaa hay-adaha maaliyadda wasaaradda maaliyadda ugu horeyso iyo baanku in nidaamkeena dhaqaalihu uu noqdo nidaam ku salaysan isla xisaabta. sidaa la sheegay waanu joojinay dhammaan hay-adihii dakhliga gaarka u qaban jiray. shilin kastoo dowladda soo galaa maanta toos ba ugu dhaca wasaaradda maaliyadda. marka waxaanu go-aansanay in shilin kasta oo ummaddani leedahay uu khasnada dowladda kusoo xaroodo. waxaan kaloo shacbiga u sheegayaa ballanqaadka iyagii ahaa inaan xukuumaddu u dul qaadanaynin musuq maasuq ah inuu 100% hirgelayo haddii ala yidhaahdo. waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo sidaa uga soo shaqaystay howlaha inoo qabsoomay iyo farsamo yaqaanadii barnaamijka caawa isku soo dubariday. barnaamijka siyaasiga ah xisbiga waxaa saldhig u ahaa 3 qodob. mid wuxuu ahaa nabad. sidaa la sheegay nabaddu waxay aasaas u tahay inaynu horumar sameyno. marka sababtaynu ciidanka u qarameynayna waxaa ahayd arrintii koowaad ahayd inaynu dalka nabadayno. taasi waddankana nabadgelya u keenaysaa. duniduna way nagu soo dhiirinaysaayo dunida waxaynu weydiisanay inay somaliland meel ammaana tahay oo la maal gashan karo. marka maanta waxaanu dunida ku qancin karnaa inaanu cerigaabo geyno oo aanu gobol kasta geyno oo aanu degmo kasta geyno. maanta cerigaabo iyo ceelaf weyn iyo xaaladdii 3 bilood ka hor ay ku sugnaayeen way ka duwan yihiin. waxay nagu nimi iyagoo dadku wada qoryeysata. maantana magaalooyinkaas waxaa laga mamnuucay in qof qorisita uu soo galo. runtii waxaan halkan uga mahadnaqayaa deegaan kasta ama beel kasta oo ciidankeedii qaramaysay xukuumaddana ku wareejisay. maantana aynu ku faani karno in ciidankaa la qarameeyey iyo saanadoodii iyo hubkoodu ay maanta yihiin kuwa xoojinaya cududda iyo tirada ciidanka qaranka. cidda duulimaad kuma nihin baanu u sheegaynaa dunida. laakiin ciddiina soo doonataa
ويكش الله يدوت هذا الله يلعب waxaanu xoojinay siyaasadda arrimaha dibadda waxaanu insha allah maadaama hadafkeenu yahay iyo himilada shacbigeenuba inaynu noqono dal madax bannaan shirkii weynaa aan ka qayb galay imaaraadka waxaa ka soo qayb galay 140 dal marka wuxuu ahaa munaasabad weyn oo aynu fariinteennii halkaa ka gudbinay waxaan rajaynaynaa in fariinteennaasi ay gaadhay dunida intii badnayd hadda waxaynu dub boodhka uga turnay dhammaan saaxiibadii somalilan ee dunida joogay meel kastay ku sugnaayeen waxaanu rajaynaynaa in shaqo wanaagsani xagga arrimaha dibadda ay nooga qabsoonto mustaqbalka dhow oo aynu gaadhno himiladii aynu ku taamaynay muddadan dheer haddii aan la yidhaahdo waxaa ku soo gunaanadaya qodobka labaad ee ahaa midaynta ama wadajirka ummadda isna waa wuxuu noo ahaa aasaas xisbiga iyo xukuumaddaba intii aanu xukuumadda joognayna dhammaan qaybaha bulshada intoodii badnayd baanu la kulannay ee somalilan waxaana caawa halka kaga dhawaaqayaa inaanu haweenweynaha somalilan iyagana gaar ula kulmi doono waxaan ku baaqayaa sidaynu awalba dee ugu baaqaynay inaynu gacmaha isqabsanno wadajirna kusii soconno si aynu u rumayno himiladeenna ah inaynu gaadhno dal caalamku aqoonsado haddii aan la yidhaahdo waa inaynu ogaano in siyaasad kasta oo aynu curinno ama go-aan kasta aynu qaadanno amaba tallaabo kasta oo aynu qaadnaa inay go-aamin doonto inay berri dadkeennu inoo sii wadaan taageeradii iyo codkii xaddhaafka ahaa ay noogu taageereen doorashadii dhow waxqabadkeenu iyo waxqabad la-aanteenu waxay saldhig u noqon doonaan shacbigu doorashooyinka soo socda waxay inaga yeelayaan haddii aan la yidhaahdo dhammaan shacbiga somalilan waan salaamayaa waxaan iyagana u mahadnaqayaa barasaabka caasimadda iyo meeyarka iyo dhammaan xubnaha kale ee golayaasha qaranka iyaguna caawa halkan jooga somaliland ha noolaato somaliland ha noolaato asalaamu calaykum waraxmatullah